wiil dhalinyaro ayaa wuxuu doonay inuu guursado. Marka sidaas darteed dadka ayuu weydiiyey gabadhaas sidee waaye dabeecaddeeda iyo wanaageeda. Dadkii oo dhan waxay ku dhaheen gabadhaas waa gabar xun, waa inaad iska dhaftaa. Asigoo murugaysan ayuu ka tegey. Nin waayeel ayaa wadada ku arkay wiilkan oo murugaysan. Wuxuu ku dhahay wiilkaygu maxaa kugu dhacay? Wiilkii wuxuu ku jawaabay adeer gabar ayaa rabay inaad doonto. Dadka ayaan weydiiyey waxaan ugu dhaheen gabadhaas way xun tahay, sidaas ayaan iska dhaafay, murugtaas ayay hayso. Markaasuu wuxuu ku dhahay wiilkayga gabar gurigeyga joogta ayaan ku siinay oo aniga aan dhalay, soo weydii dadka inay fiican tahay in kale. Wiilkii wuu baxay, dadka ayuu weydiiyey odaygaas gabadhiisa sidee waaye dabeecaddeeda. Dadkii oo dhan waxay ku dhaheen gabadhaas waa gabar xun, ha guursanin. Markii dambe odaygii ku soo laabtay wuxuu ku dhahay sidaas ayay igu jawaabeen. Wuxuu ku dhahay orod gurigeena soo fiiri bal haddii aan gabar aan dhalay joogto wax ilmaa ma dharin. Sidaas darteed dadka hadalkooda mar walba wuxuu u badan yahay been, wax xun ayayna sheegaan ee ha rumaysanin hadalkooda. Assalaamu calaykum.